ushaa in la dhigo oo jannada ayaa adduunka wax yeelo oo barwaaqo ka qiimo badan wuxuuna ku soo ururin lahayn halka jannada dadka joogaana dadkan ma aha dalkuna dalkan ma aha duunyada ama hantida la leeyahay hantidan ma aha afar saxiixa waxa ibn Abbas kaga sugan wax alla waxa buu quraanka lagu sheegay ee jannada uu laga waramaya magacuun bay iskaga mid yihiin wax kasta oo la yiri adduunyadan intoo la inoogu tilmaamay ma xaga magaca uu mooyaana manfaca iskaga mid yihiin ma jiro waa dhab وكان النبي يقول عليه الصلاة والسلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنة وحا كدن بيا وحا دغ مقل كرين او علوس يشنا اركي كرين قلبنا قفك aan ku soo dhici karin oo ku cuslaanaya waxa kamid ah xadiidka saxiixa ah nabigu waxa uu عليه الصلاة والسلام ushaa in la dhigo oo jannada ah ayaa adduunka wax yeelo oo barwaaqo ah ka qiimo badan waa ul yar in la dhigo sawt waxa kale uu tilmaamay ruux xurul ciinta jannada mid kamidi hadii adduunyada sidaa u soo eegto adduunka oo dhan baa iftiimi lahaa talow nalka ka baxaya makii nuclear ku siraadaya gambadeeda udgoonka ay leedahayna adduunka oo dhan buu wada dhamaynaya oo uu wada gaaraya wax cajiib ah qofku markuu inta maskaxdiisa arimaha kaga fikirayo wuxuu leeyahay war qaaradahan inta leeg ee 30 kun isku weerka ah siday u gaari karays udgoonkan iyo iftiinkan iyo arin cajaa'ib ah daaraha ama aan ilaahna ee dhulka halkaas dhulkana aad buu uga fogyahay way nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusay dhismayaasha jannadu xabad labani waa lacag xabad labanina waa dahab mifsalka ama waxa la isugu dhajinayaana waa miskiga aad ka udgoon kuus dahaba ninka hela xabad labanaho dahaba qofka hela imika deedisha faqriga uu tuuri lahaa xabad labana balkiibaaba wuxuu noqday mid daara la iskaga dhisayaba quruurixeeduna waa luuluuda dhalaalaysa nooca u qaalisan ciideeduna waa guduudka iyo quruxda leedahay waa sacfaraanka udgoon aad ka u qaaliga waxa ka sii badan oo nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam ehelka galaya allah inaga yeeleen waxa uu qofka muuminka ah waxa uu ku leeyahay jannada bangalaad weyn luulubay ka samaysan tahay balaarkeeda iyo cabirkeedu waa 60 mayl buu 60 miilan 60 mayl waa imisa kiiloomitir waa 90 kiiloomitir ugu dhawaan bal waa yahay meesha guriyahaaga mid kamid ah 90 kiiloomitir halkan magaalooyinka caalamka u waaweyn baa la yiraahdaa 90 kiiloomitir bay gaaraan murabbacooda adduunyada magaalooyinka u waaweyn ee 20 milyan iyo 30 milyan ku noolyihiin ma baalu kanin baa gurihiisii boqolaalka ha mid kamid 90 kiiloomitir yahay sidoo kale oranaya halku fariisanaya iyagoo cajaa'ib meesha in la dhargo lagu warwadhay ayaa meesha ka muuqanaysa waxa ka yaab badan waxa meesha nicmaha yaala dee aad uga may bogan kareen dadku haday sideenan isaga kooban yihiin ilaa inagu adduunyadu markii la abuuray nabi aadam 60 dhundhun buu dherarka calayhi salaam dadku way sii gaabanayeen rifan iyo lisanun baa ku sii dhacay ilaa inuu dhowr dhundhun ku soo hadhnay imisa dhundhun baa tahay markaas dhundhumiso 60 kii dhundhun nabi aadam way sii gaabanayeen marka dadkii jannada galena ilaahay wuxuu u abuuray nololtii ugu casrisanayd dadku markay hadda wax xamaalayaan bay yiraahdaan waa shayga ugu moodaransan ee ugu casrisan baa leeyahay abuurka kii ugu casrisanaa buu ilaahay dadka abuuray ee ugu cajaa'ibsanaa saadaradeed qofkii waxa la siiyay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam 100 qof awoodood buu leeyahay xagga cunnada iyo cabida iyo hamada iyo jimaaca cajaa'ibata dunya intaas buu wuxuu yeelanayaa 100 qof awoodood ayuu qofkaasi leeyahay barwaaqadaas halka waxa quraanku iyadoo kala nooc oo aad iyo aad u siya badan oo inaga waramaya si aynu u cishqino oo aynu ilowno waxaan yaryar ee adduunyada aynu ku wareernayno ku dawaqayno salafuna saalix qaybo kamida baa dadkii saalixiinta ahaa ayaa cishqiga jannada u qabaan ilaa wayba halkanba waxa kamid ahaa imaam an-Nawawi rahimahullah
oo ka mid ahaa culimada maguursatada ah ayaa mar la yidhi maxaad u guursan weyday wuxuu uhi warniyow anigu markaan jannadaa akhriya iyo nicmada ku sugan hamigaygu halkaasunbuu ku xidhan yahayoo dumarkaa la yidhi waa daahiroo halkaa u xalla wax dhiigah iyo howlo kale male kuwaasaan bikaaradayda ku jabinayaayoo kuwaasaan la sugayaa buuhi waanu kaga dhabeeyo 45 jir buu ku dhintay goobtaa iyada ah bani aadamka waxaynu leenahay ilaahay wuu bedelay dalkii haddaynu soo sheegnay dadkuna dadkii maaha dadkan adduunyada lagu yaqaano haddii qoladii imika biology iyo cilmal xayaaga ka warrami jirtay halkaa way ku dawaqayaan waxba kama sheegi karaan cilmiga bani aadamkii habkuu abuuran yahay dadkii halkan wax ka sheegi jiray intaa in leegugama baxsanaa way noloshuba noloshii maahaba nebigu wuxuu ka warramayaa calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka markuu wax cuno ee uu cabbo saxaro ma laha kaadina ma laha dhidid urayana ma laha meanay noloshii isbedelin markaa bal qofkan wuu liqayaa wuu dhargayaa una wuu wadaa haddana qashinkiisu wuxuu noqday daaca yar iyo dhidid yar oo labaduba aad u udgoon yihiin oo iyaga laftigoodaba laga subkanayo ayaa wixiisiibay suragay noloshiisibaa qofkii isbedeshay duuf male oo saxaro male oo kaadi male oo dhidid uraya male oo dumarku dhiiggii dhalmada iyo kii caadada male qur-aanku dumarka dahaara inay daahir yihiin ayaa uu ku ammaanaya jannada waxyaabaha ugu sii cajiibsan waxaa ka mid ah marka la wada galo jannada ninka ugu janno yar ama qofka ugu janno yar waxaa la siinayaa qaaradahan adduunyada aynu imika aragnay ee dadkan meesha ku nool isku haystaan waxa maal yaalla in leeg baa la siinaya axaadiidtan macnahoodun baan idiin sheegaya laakiin waa wada saxiix sida ay garanayaan dadka yaqaanaa marka waxaa la leeyahay adduunyadii wixii xoolo yaallay oo dhan ma kugu filantay buu ilaahay leeyahay haddaan ku siiyo waa qofkii ugu janno yaraa ilaahay ow haa buu leeyahay waa lagu labanlaabay alla sii dhargay 10 jeer baa lagu laabay baa la leeyahay marka nicmada adduunyada taalla 10 jeer la laabay ayuu kii u janno yaraa ayuu helay waxaan ku soo ururin lahaa 3 ogeysiis oo aad ugu yaab badan ayaa jannada laga ogeysiinaya yunaadi muraadi fil janna malag ilaahay oo amray baa jannada dhexdeeda ka dhawaaqaya wuxuu leeyahay ahlu jannihiyow waxa la idinku bushaaraynayaa waa ogeysiis somaad maqli jiray ogeysiis idaacadaha iyo tiifiyada ka bax kii ugu cajiibsanaa waa kaa ogeysiis la maqlo kuwa ugu farxadda badan weeye waxaa leedihiin inaad noolaataan oo aydan dhimanin inaad daayaraataan oo aydan gaboobin inaad caafimaad qabtaan oon weligii cudur ku dhicin balka warran saddexdaasoo ishelay nicmatii ugu wanaagsanay intaad hesho haddaad dhimanba weydaba haddaad gaboobiba weydaba haddaad xanuunsanba weydaba waxa meesha inaga helayso waxaan ma ahayn musiibadana ayna heshay waxayna helay waxa weeye hadduu caafimaad qabo uu daayar yahay wuxuu leeyahay tolow goorma xabadi ku dili ama gaari kula qalib way iskaba yar macaan tahay adduunyadu marka saddexdii musiibo ayna helay saddexdiiba ka bogsada baa la leeyahay waxa ka sii yaab badan ahlu jannihiyow ogeysiiska labaad maxaa u baahantii wax alla waxaan u baahnay waanu dharagnay meel qof bani aadam yidhaahdo waan dhargay halkaasaa lagu hayaa halkan wax walba haddii lagu shubo in yar baa ii hadhay haddii imika la idhaha qofka maxaad u baahantuu tiriyu dhammeeyo marka dambe wixii la siyaabuu leeyahay in baan ilaaway qayb baa iga maqnay taana ma idin igu dari halkaa laakiin waxay leeyihin wax noo hadhay ma jiro ogeysiiska markaa waxaa lagu siinayaa ogaada ilaahay wuu idinka raali noqdo weligiin idin cadhoon maayo macnaha cadhada alle addoonku maalintaasunbuu ka aamin noqonayaa ilaahu halkaa gaadho cadhada alleh ilaahay addoonku kama aamin noqon karo ogeysiiska saddexaad ugu sii yaab badani waxa weeye waxaa leeyahay ahluljannihiyow aroorta waxa idinla ballansan ilaahay subxaana wa tacaala xadiis saxiixa bal ka warran dadka qaar baa shaarku ka badbata haddii la idhaha madaxweynihii baa ku doonaya aroorta madaxweyne talow muxuu bixin doonaa talow miyuu ku dallacsiin talow muxuu ilaahay baa idinla ballansan baa leeyahay ilaahay boqorka habaa idinla ballansan addoommahaasi farxad bay kala badbadanayaan ilaahay bay la kulmayaan subxaanahu wa tacaala ilaahayna xijaabku isaga qaadaya jannadiiba markaasay la fududaanaysa liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada janno qaaliyay leeyihin buu ilahay yidhi awliyada ilaahay iyo dheeraadkaasina waa ru'yatullaahi fi ljanna aragtida awliyada ilaahay ay jannada ku arkayaan markay raalli noqoshaha ilaahay helaan ay ilaahay la kulmaan ay araggiisa helaan ayaa wax waliba uu u dhammaystirmayaa waxay leeyihiinoo farxaddooda ka mid ah ikhwaanana calaa sururin mutaqaabiliin waa isa soo qaabilayaan oo suuqyaa jira lagu sheekaysanayo
ماشي هولي ما تالو عبادة ما تالو شقة ما تالو رفاد ما يالو كليا وحي ددكن هلكن يمادين راحيستان هلكا waxa la yiraahdaa الراحة بعد التعب baa la yiraahdaa halka Soomaa halka waxa la yiraahdaa marka raaxaysanayso horta tacab soo mar meesha wax tacab la yiraahdo yaala wala salaad baa la tukanay wala soom wala taraawix midna ma jiro ma xiiqaysidba ilaa xiiqitaanka raaxada inuu ku baadi doonayna waa rafaadkii ka horeeyay tijaabada ahay hadii laga tagi waayo يلهمون التصبيح زي النفس تصبيح بيودان سبحان الله لكن سيدا نفتن دي أكسجين تقفك وقادنا يعني دي بولا لهين وكلا ساسوي سوقيا مركا الله دي جنادو أحباب تأيو dadkii istiqaanay awliyada ahay ehelka iyo ay isugu yimaadaan oo daruuro buufi soo cadara ayaa halka lagu buufinaya markaas waa la dhalaalinaya waa la buufinaya waa la safaynaya si ay xururciintii ugu noqdaan iyaga oo noocii hore baan ahayn oo la yaabayo marka aswaaqda iyaga suuqyadaas qiimaha badan bay isugu imanayaan way ku sheekaysanayaan waayihii adduunyada ay iska wareysanayaan iyo wixii soo maray iyagoo wada farxaya waayo raaxada waxa ka qayba axbaabtaada iyo macaariiftaada inaad la sheekaysato waqti la qaadato hadaa si walba u dheregto de wax ka neefiyaba aad weydo wala caburaysa لكن عيد الله قص شو قال لنا في استوى وحكوا هذا الشيء ستان راح هذا إخوانا على سرر متقابلين ويسقابل سينا وضد ولا لا عورنا مين وحينو إسلام هاي إنه سكوبر أرجيني ناسيد النبي وأصحاب تمركوا وشيء كيبول على هل من مشمر متشرا مد أفيدنا أو كنتنا يشندا ها بين هذا أصحاب قولوا إن شاء الله يقول حتى واحد هذا إن شاء الله سواء قرار قات أو هرود قاتشية ساسين ولا نجزاكم الله خيرا اللهم اجعلنا من هؤلاء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم